الحمد لله وقرين مامولكا معلمينتا شقالها أرتضى قيبا كردوان الخطيرتا نيرسين لابراتوري midwifery and nutrition dhammaan dhakhaatiirta kala duwan sida Dr. Munasar, Dr. Anisa, saraakiisha kala gedisan, waalidka dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u malaynayaa inay tahay markii 8aad miya markii 9aad miya oo aan ka soo qayb galayo xaflado loo qabanayay dhakhaatiir heerar kala duwan ah ee ka qalin jibinaya college-ka New Aid Community College. waxaan u malaynayaa markii 9aad inay tahay dufcaddii 9aad. runtii ilaahay baa waafajiyey waa inama amruhu idaa araada shay-an an yaquulu lahu kun fayakuun. maxaa yeelay waxaan ogahay maxadyo badan baaba'ay ama iyaga ka horreeyey ama iyaga ku eera. waxaa halkan marka Dr. Maxamed iyo gruubkiisa Farxaan iyo macallimiinta maamulka commitmentigii ballanqaadkii ay bixiyeen horta way ka dhabeeyeen. waxaa loo baahan yahay qofka marka la leeyahay wuu caafimaad qabaa, heblaayo way caafimaad qabtaa, hebel wuu caafimaad qabaa. erayga caafimaad muxuu yahay? waa fayaqabka jir ahaan physical health, maskax ahaan mental health, bulsho ahaan social health and spiritual religion diinta ku toosnaado. afartaas weeye qofka inuu jir ahaan uu caafimaad qabo, maskax ahaan uu caafimaad qabo, bulsho ahaan uu caafimaad qabo, qabiil qurun uu ka madax bannaan yahay. iyo diintiisa uu ku toosnaado. marka sidee lagu garan karaa qofka caafimaadka qaba? kow hal abuuruu leeyahay. habeen buu seexday wuxuu ku fikiray inuu abuuro New Aid Community College. waa fikir kaliya fiiri, waa fakar maxaa lagu garanayaa qofka good health-ga qaba? wuxuu leeyahay hal abuur. kow waa hal qodob buu haystaa oo muujinayo inuu yahay healthy person, inuu ahaado wuxuu abuuray inuu fuliyo, not fikir keliya inuu ku gaabsado. rasuulka sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi inama alacmaalu niyad bay ka tahay, wuu ku adaadagayahay, wuu fulinaya marka. okay midwiferyga maanta qalin jibinayo, nersika maanta qalin jibinayo, shaybaaristaha maanta qalin jibinayo, nutritionka maanta qalin jibinayo, waxaan ugu baahannahay inay noqdaan healthy persons, shakhsiyaad caafimaad qaba
oo shahaadada maanta ay ka qaateen New Air Community College aysan saxan aan dib u fiirino 1993 Digfeed baan joogay waxaan ahaa that time I was a nurse baan ahaa really registered nurse waxaan ahaa madaxa qaybta gargaarka degdega isbitaalka guud ee Digfeed ayaan waa dagaaladii sukeeye qaarkiin ma dhalan aabiiri hooyadin xataa isma aqoon in 1993 xamar way qaybsanayd qad cagaaran la iskuma gudbi jirin hal baabuur ma socon wadooyinkoo dhan qashin baa xeray hal baabuur ma jirin dhaawaca gaari gacan baa lagu keeni jiray gaari gacan waxaa yimid hay'ad lagu magacaabo IMC International Medical Corps USA United States of America dhagayso dayactir bay bilaabeen shamiitadii sawirkii nuuriyadii qaramaayadii ayay qasarayaan meeshaas macnaa ku jiro dhagayso dhagaha fur dayactirkii markay dhameeyeen kulli farayaamay ahaayeen kooda weyn kooda yar miishaartii buruskii musmaarkii ayay qaateen kadib waxay noqdeen rinjiile iyagaa gacantooda ku marsanayay qaybta burunta sokorta oo ah qaybta emergency ward iyo OT-ga operation theater-ka ayay dayactir ku sameeyeen rinjigii markay dhameeyeen saalooyinkii iyo laata operationkii iyo wixii oo dhan bay rakibteen ninkii shalay fundiga ahaa faryaamaha ahaa rinjiilaha ahaa isaga ayaa qaliinkii ugu horreeyay librotomiyada sameeyey furay abdominalka waan weydiiyey war waxaad ahayd farsamo yaqaane goormaad surgeon doctor isku bedeshay wuxuu yidhi mid kastoo annaga naga mid ah wuxuu leeyahay 7 xirfadood ayuu leeyahay marka waxaa idin laga doonayaa inaad xirfadan keliya iyo takhasuskeeda aadan isku koobin xamaaliga aad barataan dhismaha fuundi noqotaan faryaamana noqotaan xirfadda dhabta aad u soo noqonayso ha ahaato nursing midwifery laboratory and nutrition go waxaan hadalkayga hadda kahor midin kaga sheekeeyey taariikhda xabeeb mental hospital iyo qaabkaan u furay midin kaga sheekeeyey war waqti ma haystaa aawey taamkii markii aaya waxay ahayd November 2005 waxay ahayd 1 November 2005 maalin ayaa waxaan ku arkay muddo 5 daqiiqo gudahood 5 gabdhood mana every minute I see waxaan arkay daqiiqad kasta daqiiqad kadib hal gabar oo ka yar 20 sano oo dhimirka ka xanuunsanayso caruurtii
dadkii ay ceyrsanayaan waxaan ku fikri marka awal wiilasha iyo ragga ayaa suuq ku soo deyn jiray haloora waxaan dhahay waddankan wuxuu u baahan yahay psychiatric hospital ayuu u baahan yahay aniga waxba ma haysan hal qolaan furay hal qol isbitaal ma noqon karaa 4 mitira maya hal qol isbitaal ma noqon karaa ma noqon karo caruurtaydii sariirahoodii oo markaa 5 sariir ahayd ayaan soo qaaday qolkii 4 qolahay baan dhigay caruurtii dhulka ayaan seexiyey artistii qoriyey magaca xabaab hospital 2 qolay 2 shimbir oo uu wiilkayga doctor maxamed xabaab hadda dhakhtar weeye uu lahaa 2 qolay ayaan ka soo qaaday Cabdalla Shideeye geeyey 7,000 ayaan ku bariyey artistii qoriyey nana publication waa 2 qolay waa 2 xamaam waa 2 shimbir xabaab hospital artistii qoriyey hal qolna isbitaal ma noqon karo xusuusnaaw maanta heerkee buu maraya maanta wuxuu isku bedelay xabaab mental health foundation buuhoodle caabud waaq xamar 4 isbitaal kismaayo balad xaawo kii ugu dambeeyey waxaan furay 26 Disembar 2019 deegaanka Dhooblayaan ka furay haddana waxaan u soconnaa ceel waaq iyo ceel buur ayaan ka furay boqol iyo 11 shaqaalaha oo isugu jiro dhakhaatiir nursing iyo public health ayaa ka howlgalo iyo caretakers ayaa ka howlgala waxaan rajaynayaa marka inaadan meel fariisan fakara sidaad bulshada wax ugu qaban lahaydeen macallimiintiinniina waa idin garab istaagan tahay xabaab hospital ama xabaab mental health foundationna wuxuu idinku soo dhawaynayaa gacmo furan qofkii doonaya inuu ku soo biiro psychiatric wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu